maalinta sagaalaad xulashada 12 markaa kadib sayid ciise wuxuu arkay canshuur qaade la yiraahdo Matayos Lawi oo fadhiya iridda canshuurta lagu aruuriyo xartayda noqo sayid ciisana wuxuu aaday tag sare xaggeeda habeenkaas oo dhan wuu baryootamay oo markii waagi uu baryay wuxuu ka doortay 12 xeer wuxuuna ka dhigay una magacaabay rasuulo kuwaasi waxay ahaayeen Simon oo lagu magac daray Butros Andros oo Butros walaalkiis ah Yaqub Yohana Filipos Bartolomeos Matayos Thomas Yaqub in Alfayos Simon oo la dhihi jiray wadani Judas ina Yaqub iyo Judas ina Iskariot oo ugu dambeyntii sayid ciise gacan geliyay sidee ayuu ciise masiix u xushay xertiisii ugu dhowaa 2 marka uu ciise masiix leeyahay aniga isoo raac sidee ila tahay aniga 3 sidee ayaan u isticmaalaa habka xulashada ciise masiix